loolanka iyo hirdanka siyaasadeed ee xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye ayaa maraya meeshii ugu sareysay habeennimadii xalay waxaa magaalada London casho sharaf loogu sameeyay Maxamed Biixi Yunis oo ah wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland oo kamid ah musharaxiinta xisbiga kulmiye waxa xafladaasi ka qayb galay warbixinta noo haya wariye Cabdulaahi Maxamed Cali wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Maxamed Biixi Yunis ayaa habeenkii xalay ahaa kulan casho sharaf loogu qabtay galbeedka magaalada London kulankaasi oo isugu yimaadeen aqoon-yahano iyo odayo kala duwan oo kamid ah jaaliyadda Soomaaliland ee ku dhaqan dalkan Britain xubnahan oo ka kala yimid magaalooyinka ay ka mid ka yihiin London iyo Bristol ayaa waxa ay dhammaantoodba ka hadleen taageerada ay u hayaan Maxamed Biixi Yunis isla markaasina ujeedada ay kulanka casho sharafta u qabteen ay tahay inay muujiyaan musharaxnimadiisa sida ay ugu garab taagan yihiin halkaasi oo ay ka hadleen aqoon-yahano kala duwan oo ay ka mid yihiin Cabdilaahi Xasan Cami iyo Mawlid Maxamed Muumin iyo Maxamed Baashan Xasan iyo qaar kale oo badan ayaa waxa halkaasi sidoo kale hadalka qaybiyay isla markaasina ku soo dhaweeyay dadkii halkaasi isugu yimid oday Caydiid Aw Cali oo isagu sheegay in ujeedada ugu muhiimsan ee kulankani uu yahay taageero loo muujinayo Maxamed Biixi Yunis oo isagu diyaar u ah buu yiri waa sida uu sheegay in uu isku soo sharaxo musharaxnimada hoggaanka xisbiga kulmiye sanadka 2017 doorashada la filayo in ay ka dhacdo Soomaaliland xubnahaasi oo hadallo dhiirigelina iyo guubaaba soo jeediyay ka sakow waxaa mikrofoonka lagu soo dhaweeyay Maxamed Biixi Yunis oo isagu goobtaasi ka shaaciyay in uu yahay musharax u taagan jagada hoggaanka xisbiga kulmiye ku hagaya doorashada sanadka 2017 waxaana kulankan oo aan la duubin wax maqal iyo muuqaal ama fiideo wax balse saxaafadda loo ogolaa sawirro iyo qoraallo oo kaliya Maxamed Biixi Yunis oo mikrofoonka lagu soo dhaweeyay kadib markii xubnahaasi aqoon-yahanada iyo odayadu ay soo jeediyeen hadallo u badnaa guubaabo iyo taageero ayaa Maxamed Biixi waxa uu yiri oo hadalkiisa kamid ahaa waa run sida la idin sheegay waxaan ahay musharax ka sharaxan xisbiga kulmiye waxaan aaminsanahay in aan aqoonteeda leeyahay waxaan ahay nin la soo macaamilay caalamka waxaanan filayaa in qof waliba uu mar wax qabto oo meel wax gaarsiiyo waxaan aaminsanahay in aan halka madaxweyne Siraaye u gaarsiiyay aan ka sii amba qaado waxa kale uu sheegay oo intaasi ku daray oo yiri waa xilligii aqoontu wax hagaysay qof waliba in buu soo qabtaa waxaan aaminsanahay in aan halka uu soo gaarsiiyay madaxweyne Siraaye aan ka sii amba qaado waxa uu Maxamed Biixi sidoo kale halkaasi ka jeediyay hadallo ku aroora waxqabadka xukuumadda uu ka tirsan yahay iyo sidoo kalena arrimaha la xiriira wada hadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo sidoo kalena xiriirkii cusbaa ee uu sheegay dhawaan in ay la yeesheen dalka Itoobiya asiyaatee Maxamed Biixi waxa uu ku adkeeyay taageerayaasha isla markaasina in ay iskarab taagaan isagoo sheegay inuu yahay musharax doonaya taageeradooda isla markaasina aad uga mahadnaqay kulankan casho sharafta ayaa lagu tilmaamay inuu ahaa mid fariin u diraya garabyada kale ee xisbiga kulmiye iyagu ku loolamaya hoggaanka xisbiga kulmiye doorashada dhici doonta sanadka 2017 taasi oo xukuumadda lafteeda wasiiro ka tirsan ay sheegeen in wali musharaxu yahay madaxweyne Axmed Maxamed Siraaye kulankan casho sharafta ayaa lagu tilmaamay inuu ahaa mid fariin u diraya garabyada kale ee xisbiga kulmiye iyagu ku loolamaya hoggaanka xisbiga kulmiye doorashada dhici doonta sanadka 2017 kulankan ayaan lagu soo hadal qaadin xubnaha kale ee xisbiga kulmiye ee iyagu shaaciyay in ay yihiin musharaxiinta xisbiga waxaana u badi u badnaa guubaabo iyo dhiirigelin ku kooban Maxamed Biixi Yunis balse sida loogsoon yahay loolanka kulmiye uu haatan soo gaadhay dhanka qurbaha Cabdulaahi Maxamed Cali Kelson TV London